waxaa soo bixi doona kuwana diidanay shalana eedeynayay na dacaayadeynayay ayaa cod dadka inta ka soo helaa soo bixi doona dimuqraadiyaddana waa intaas anaa hebelaa ijecel iyo hebelaan jecelahay midna ma ahan waa ninka dadku ay danaynayaan ee fikirkiisa saxda ee siyaasiga dadka ka iibiyey kaas unbaa soo baxaya ee sooma baxayo midka maxaan ku yidhahdaa ee bannaanka ka qayliya ama meelaha maxaan ku yidhahdaa ka qaylo dhaami waxaan si buuxdo mar kale iyo mar kale u bogaadinayaa u hambalyaynayaa maxaan ku yidhahdaa dadka koonfur galbeed ee saakay u dhaqaaqa codbixinta waxaa sidoo kale aan bogaadinayaa hay-adaha amniga ee har iyo habeen u taagan in ajandahaas xorriyadda dimuqraadiyadda ah in ay ammaankiisa sugaan oo ay ilaaliyaan oo aan la carqaladaynin oo cadowga dowladnimada soomaaliya cadowga shacabka soomaaliyeed oo ay ugu horeeyaan al-shabaabku in ay maxaanku iyo kuwa dadka kalsooni ka waayey ee waxa inay carqaladeeyaan rababa hor taagan ciidamada amniga ah ee duurka iyo miyiga iyo baadiyaha maraya oo socda oo diidaya in la carqaladeeyo ayaan aad iyo aad u bogaadinaya ayagana waxaan leeyahay shaqadiinnii iyo waajibkii laydin igmaday ayaad si fiican oo wanaagsan aad u qabateen guulaysta waxaan leeyahay oo kale soomaaliya jihadaasay aaday dadka soomaaliyeedna waxaan u tilmaamaynaa waa jihadaas waa mustaqbalkooda dhallinyarada soomaaliyeed ee boqolkiiba 70 dadweynaha ka ah mustaqbalkiinu meeshaasuu jiraa ra'yigaaga inaad meel la tagtuu jiraa adiga inaad xor tahay oo waxa aad kula tahay inaad cabiratiduu jiraa adiga inaad xor tahay ood qofka aad doonto aad doorato adiga aan lagu doorin ayaa mustaqbalkaagu jiraa adiga inaad xor tahay oo aad isu soo sharaxi karto oo hallay doorto anaa dadka maslaxad u hayee aad dhihi karta ayore yaan lagu isticmaalin ee adiga ra'yigaaga iyo awooddaada iyo caqliga aad leedahay isticmaal dhallinyaroy waa halka fursaddiina mustaqbalka ay jirto waxaan rabaa inaan sidoo kale aan soo qaado magaalada muqdisho waxaa looga dhawaaqay bannaanbax maanta inuu dhacaa horta marka koowaad bannaanbaxa maanta in lagu soo aadiyo ayadoo dalka meel ka mida doorasho aad iyo aad u ballaaran ay ka dhacaysahay su'aalay leedahay maxaa maanta loogu soo aadiyey oo ay doorasho ka socoto dalka waa su'aalay leedahay waxaa iyadana su'aal meesha taagan ah oo in la fahmo u baahan sababta maanta oo ay dowladda soomaaliya ku baaqday shir hordhac ah oo wadaxaajooda in la isugu yimaado bannaanbaxa loogu soo aadiya isagana niyad samaan kama muuqata meeshaas maalintii oo shir wadaxaajooda dowladda ku baaqdayna bannaanbax lagu soo aadiyo maalintii doorasho ay ka dhacaysa dalka qaybo weyn oo ka mid lagu soo aadiyo bannaanbax niyad samaan loo soo abaabulamahayn bannaanbax soomaaliya in lagu carqaladeeya ay ahayd dowladduna intay fahamtay ayay ogolaatay in bannaanbixii la qabto hase yeeshee nasiib darro dadka soomaaliyeed ayaa ayaguna